قرش waxay soo baxday labadii bishii labaad 14 labadii 2017 haddii aan garashada guda galno waxay ku bilaabanaysaa waxa ayna geeyaanka silmay guudka loo dabay sida geeyasha xilin galbinaysa socodkaad ugu garasho badan tahay geesigii ku dhalay shubaad hooyadaaba akhlaaq ku gardaasho gurigaad ku aawtaa sama lagu gadaamo ducaan gaboobay ku guneebay halkaa cilmiyaan gabaabsiyo gadoon ku dhalay aqli garasho wacan baa kullu ku deeqood geeyaankaaga dheer waa uu gabar yahay sidii geegi barwaaqeed arawada gangamaniyo qalal wada xareedo gudiyo mahiiga meegaxda uu shubay ama gugoo intuu daay gubaniye ilaa xeed gaaroodiye selas umarkii wajaaliyo gaashaama iyo bari ama sugume geesta lafta gacan libaaxiyo ilaa daala guudkeed dalalkii xareedhigay alceeduna gantaallaa ku gantoo ilwaadkii ku bixii gadaal baxay carfi uduga geeduhu mankuu guniyo baar amba geeska luleeyahay shimbiruhu gadoodii yeesaa gudbinaya qoray iyo haldhaa iyo garanuug iyo ciidii gudir iyo bacayrtii gidi habar dubaagii goonyaha ka jooga kursamada haabiyo lagu mood gobaaday qoraygiis kala goray Soomaali gabayo ogaalaheedii urti aan gaboobayn taariikh muguurtaa sooyaalku ka wartay koombaareel ku yiifiyo ina gaari muuqiyo midabaan la kala garan ragna geesi hanadiyo fule golo ka faana muuqaan la kala garan markay nabadgud hoosiyo laba gabi dhex taale hadal uu gabaabsiyo eerida nin weheshaday iyo kaa ka gaabshee gabashada ku tala galay waa laba gudbooni xaajada gunaadkiyo garalee adkaatay geed hadhaca hoostaal ninka labada geesood gacan qaadaf garashale sama ugu gunaanada geesi lagu tilmaamaa gundhigeeda maasada haddii aan u guda galo muuqa iyo garaad kuba gallad weeye iyo buu garashiyo aqoontaba guula loogu mahadnaqo waxse gaari ay tahay ugu geenya shaaximan ilwaad qalanjo garasho leh amran daacad guurwada tashi iyo gatabanaqa gadoonka waayaha iyo gabidhaclaynteed gibil doorshimaankeed cashar iyo tubgaarun kaga gubta dheeli dadna labada geesood danyar gacal wadaagaan gundhigeeda maasada aan sooba gaabsheeye dhulku guula siiyo gaari dhaban la weeyey wax guhaadayay taban